كوريي نين أنصارية إنه أها نين جنعصده lagu tilmaamay naasik iyo waric xalaal miirad inuu ahaa xilligii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ninkaasi inuu maalin maalmaha kamida isagoo safar doonaya soo maray tuulooyinka iyo magaalooyinka deegaanka bani aadamka kamida oo dhinaca shaam inay ahayd lagu tilmaamay ninkii waxa uu warsaday cid gaadiidlaya oo uu kaashado oo uu weheshado oo dariiqa marisa waxa loo sheegay nin dadka ka kireeya fardo ninkiiba farda iyo gaadiid ka kireeyay ninkaas oo tuugaha asalkiisa yaa markii wadadii dhexda la sii marayay wuxuu yiri wadadan inagu leex waxa uu yiri war wadadan haynagu leexina tana raadkiya dadka cagtoodu ka muuqataaya ina mari wuxuu yiri may anigu tana naqaano tana dhow oo tana toobiya wadadii ayuu ku hormaray ninkii dabeedna markii hawd halkaas ahiya kayniya dhul qariiba la dhex marayay iyo togag la maraayo yaa wuxuu tusay lafa dad badan oo dhintay waxa uu ku yiri intaas oo aadama aniga ayaa dilay